السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan idin haynaa xanuun cusub oo ka dillaacay Mareykanka iyo halka uu maray coronavirus-ka China. Daawasho wacan. Saaxiib beel hanaga ilaawina subscribe iyo like iyo comment iyo barnaamijka shirkadaysan. Waad maasantiin. wadanka Shiinaha waxaa faraha ka sii baxaya cudurka dilaaga ah ee corona loo yaqaan kumanaan kun oo qof Shiineys ah ayaa cudurka u dhintay dad ku dhow 100 kun oo qofna waa ay ildaran yihiin. waxaa guul daraystay isku daya dhowr ah oo dawladda Shiinaha ay ku doonaysay inay ku xakamayso cudurkan oo hadda u muuqda mid xuduudaha ka sii gudbaya dhibaatana ku haya dad ku dhaqan meel ka baxsan wadanka Shiinaha. xisbiga shuuciga ah ee talada wadanka Shiinaha haya ayaa la sheegay inuu qamcin ku hayo wariyaasha doonaya inay soo gudbiyaan dhibaatooyinka bulshada ka haysata cudurka lagu magacaabo coronavirus. waxaa la sheegay in dawladda Shiinaha ay ka gaabisay wax u qabashada bukaanada la ildaran cudurkani. saxafi Shiineys ah oo dhawaan booqday magaalada Wuhan ayaa soo wariyay gaabis aan dawladda laga malaysan karin oo ka jira goobaha caafimaadka. ninkan ayaa markii uu muuqaalkiisa ku baahiyay baraha bulshada waxaa la waayay halka uu jaani cirib dhigay balse wuxuu soo gudbiyay cadeymo ku aadan gaabiska ka jira isbitaalada la jeefiyay dadka cudurka qaba. waxaa la sheegay in ciidamada sirdoonka ay xireen iyagoo ku eedeynaya in caalamka u gudbinaya dhibaatada haysata dadka Shiineyska ah ee la dhiban cudurka corona. dawladda Shiinaha ayaa in laga hadlo halista cudurkan u aragta mid ka dhan ah ammaanka qaranka wadankaasi. 缺口罩，缺防护服，缺物资，最重要的是缺 wadanka ma yaalaan waxyaabaha afka looga xirto cudurka oo ku filan dadka, sidoo kale lama hayo dharka iyo qalabka looga gaashaanto cudurka. arinta ugu muhiimsan ayaa ah in aanay bukaanada heli karin baaritaano caafimaad sababo la xiriira dhaqaatiirta oo yar. waan sii wadi doonaa in aan faafiyo waxa dhacaya inta aan magaaladan joogo. kaliya waxaan soo gudbin doonaa wixii aan arko ma ahan wax aan maqlo. haddii aanan anigu dhimashada ka baqayn ma waxaad moodaa in aan ka cabsanayo xisbiga shuuciga talada haya. 我会继续做我的报道，我只说我看见的，我听见的。 sidoo kale waxaa geeriyooday dhakhtarkii ugu horeeyay caalamka u soo bandhigay in cudurkan halista ah uu ka dilaaca wadanka Shiinaha. ninkan gaalka ah ee halaagsamay ayaa ahaa dhakhtarkii bixiyay magaca corona kaas oo ugu dambeyntii dhintay isagoo ku sugan isbitaal ku yaala gobolka Hubei. هو أول من حذر العالم من خطورة الفيروس قبل فوات الأوان، لكن السلطات الصينية اتهمته بنشر الأكاذيب وأجبرته على الصمت. ونينكي ugu horeeyay ee caalamka uga digay khatarta viruska corona ka hor intuu wax ka qabashada lahaa, balse maamulayaasha Shiinaha ayaa ku eedeeyay faafin been ah iyo dacaayad waxayna ku qasbeen inuu ka aamuso arrinka ku aadan kiiska cudurkan. kaasi waa Li Liyong, dhakhtarkii indhaha isbitaalka magaalada Wuhan. kadibna viruska corona ayaa asiibay waana u dhintay isagoo 34 sano jir ah. طاله فيروس كورونا وتوفي بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 34 عاما. dadka Shiineyska ah oo go'doomiyay malaayiin muslimiin reer Turkistaan ah ayaa iyaguna caalamka go'doon ka ah. dhammaan wadamada adduunka uma safri karaan dadka Shiineyska ah. waxaa la joojiyay duulimaadadii diyaaradaha ee isaga kala gooshi jiray Shiinaha iyo adduunka intiisa kale. wararkii ugu dambeeyay waxay sheegayaan in dadka u dhintay cudurkan ay ka badan yihiin 2400 oo qof sida ay sheegeen gudiyada caafimaadka ee dawladda shuuciga u qaabilsan tirakoobka dadka Shiineyska ah ee cudurkani uu soo ritay. bishar warbixin naga sii wararkii ugu dambeeyay ee cudurkan halakiyay wadamo badan oo kamid ah kuwa qaaradaasi. aad baad u mahadsantahay maxamed. cudurka corona ee dilaaga ah ayaa ku sii faafaya wadamada caalamka sida aad sheegtayba. saacadii la soo dhaafana wadamo hor leh ayaa laga diiwaan geliyay sida wadanka Iran oo gobollo fara badan oo wadankaasi kamid ah loo xiray sababo ku aadan cudurka dilaaga ah ee corona kadib markii halkaas laga helay tiro dad ah oo cudurkan uu dilay iyo kuwa kale oo uu soo ritay. sidoo kale wadanka Talyaaniga waxa uu soo ritay cudurkan dad kor u dhaafaya 80 qof. sidoo kalena waxa uu dilay ilaa 2 qof inta la xaqiijiyay ilaa waqtigan la joogo. maxamedow wadanka Iran ayaa hadda warbaahinta ka saaran kaalimaha hore waxaana la sheegayaa in dawladdu
ay go'doomisay ama ay joojisay waxbarashadii ka soconaysay ilaa 9 gobol oo wadanka Iran ka tirsan kuwaas oo ay ka mid tahay magaalada caasimadda ah ee Tehran kadib markii gudaha wadanka laga helay dad cusub oo cudurkan uu soo ritay iyo dhimashaduna ay gaartay ilaa 6 qof ilaa waqtigan la joogo sidoo kale dawladda Talyaaniga ayaa lagu tilmaamayaa in ay casilaad ku sameysay magaalooyinka qaar oo cudurkan laga helay kadib markii 2 qofood ay u geeriyoodeen 79 qof oo kalena uu soo ritay lajnada caafimaadka ee wadanka Shiinaha maanta war ay soo saartay waxay ku sheegtay in saacadihii la soo dhaafay 648 qof oo hor leh uu cudurka corona ku soo ritay sidoo kalena maalinkii shalay ahaa ayaa laga diiwaan geliyay in dadka uu soo ritay cudurkan ay gaareen 397 qof taas oo ka dhigan in dadka cudurkan uu ku soo ritay gudaha wadanka Shiinaha ay gaarayaan hadda 76936 qof gobolka Hubei la yiraahdo oo dhaca bartamaha wadanka Shiinaha oo ah halka cudurkan uu ka soo bilowday 96 qof oo hor leh ayaa ugu geeriyooday cudurka corona kuwaas oo 82 kamid ah ay ku dhinteen magaalada Wuhan oo ah caasimadda gobolka meel ka baxsan wadanka Shiinaha markii aan u laabanana ilaa 25 wadan ayuu hadda cudurkani xaleelay kuwaas oo diraya digniinta cas kana digaya inuu cudurkani sii faafo intooda badanna waxa ay dhacaan mandiqada loo yaqaan bariga dhexe iyo Yurub iyo waliba qaar ka tirsan wadamada Aasiya waxayna u badan yihiin qaaradda wadamada qaaradda Aasiya Shiinaha wuxuu arintan kala kulmay dhibaato fara badan oo dhinacyo badan taabanaysa hadii aan la dhaqaalihii wadanka oo hoos u dhacay shirkadihii oo la xiray dadkii oo shaqo la'aan ay soo food saartay waxbarashadii oo hakad gashay ganacsigii caalamiga ah ee wadanka Shiinaha oo kaalimaha hore kaga jiray wadamada caalamka oo dhamaantoodba albaabada ay u soo xirmeen iyo sidoo kale cudurka dilaaga ah oo sii faafaya dhimashadiisa oo hadda gaartay 2442 qof taas oo ah lambar aad u culus marka loo fiiriyo sida dawladahani ay filayeen iyo ballamihii markii hore ay qaadeen oo ahaa inay sida ugu dhaqsiyaha badan leh kaga takhalusayaan cudurka dilaaga ah ee corona wadanka Iran ayaa hadda ku soo biiray wadamada sida aadka ah looga hadalhayo cudurka corona kaas oo cabsi ku beeray bulshada wadankaasi ku dhaqan inta badan dadka shiicada ah ku dhaqan wadankaas ayaa hadda la gariiraya halka xaaladoodu ay gaartay waxaa la diiwaan geliyay 10 qof oo uu soo ritay cudurkan oo hor leh taas oo ka dhigan in dadka cudurkan uu ku soo ritay gudaha wadanka Iran ay hadda gaarayaan ilaa 29 qof magaalooyinka ugu waaweyn bal noo sheeg hadda cudurkan faraha uu ku hayo magaalooyinka ugu waaweyn ee wadanka Iran ee cudurkan uu ku faafay hadda waxa kamid ah caasimadda oo laga helay ilaa 2 qof oo cudurkani qaba sidoo kale magaalada Al-Qim ayaa jirta iyadana waxaa la sheegayaa in 8 qof oo cudurkan qaba laga helay kuwaas oo hadda xaaladooda caafimaad la tacaalayo sidoo kale waxaa jiro magaalada Ardabil la yiraahdo Al-Bruz Markazi iyo Asfahan Ghaylan Hamdan Qazawin dhammaan deegaanadaas ayaa waxaa laga helay cudurka corona taasoo ka dhigan inuu si isbid leh ku sii faafayo cudurka corona maadaama wadanka Iran uusan horey kaga gaashaaman xuduudaha uusan ka xiran wadamadii hore ee cudurkan looga helay dhanka Kuuriyada Koonfureed naftirkeeda waxaa laga helay tiro dad ah xaalad cabsi ah ayaa adduunka maanta ka taagan ayaa iyaduna waxay sheegaysaa in hadda marka la fiiriyo cudurkan qaabkii markii hore uu ku faafayay gudaha wadanka Shiinaha uu isa soo dhimayo waxay tilmaameen in 2% kaliya ay yihiin dadka qarka u saaran inay cudurkan u geeriyoodaan sidoo kale waxa ay sheegeen in 80% dadka cudurkan uu ku haleelay gudaha wadanka Shiinaha hadda xaaladooda ay soo hagaagayso rajo weyn laga qabo inay cudurka ka soo kabsadaan balse waxa muuqata mar haddii Shiinaha uu ka soo kabanayo in wadamada Yurubta iyo wadamada Aasiya uu cudurkan ku sii faafayo kuwaas oo aan horey kaga gaashaaman awoodna aan u lahayn inay xakameeyaan cudurkan wuxuu ku faafayaa hawada taasoo keenaysa in saydaradiisu ay aad u adkaato hadduu ahaan lahaa mid ku kooban ama istaabadka kaliya mid ku faafaya ama waxyaabo la mid ama cunto la wadaago oo kaliya waa la xakameyn lahaa laakiin hadda waxaa la leeyahay maadaama qofkii neefsadaba uu 10 qofood qaadsiinaya markiiba waa halista ayaa la leeyahay mid kale to dibka waxa keenaya waxay tahay cudurkan qofka uu haleelay waxaa la sheegayaa in 2 isbuuc ka hor isagoo cudurka qaba aan laga dareemaynin taasna ay fududeynayso in cudurka dad badan sii gaarsiiyo marka uu qarsado markii uu soo rirtay kadibna lagu baraarugo in qofkan uu qabay cudur intaasoo kun oo qofoodna ula macaamilay 2 isbuuc la soo dhaafay taas ayaana dhibaatada faraha badan leh keenaysa arintan waxay saameyn ku yeelatay waxa loo yaqaan sportska dunida sida ciyaartooydii ka ciyaari jiray gudaha wadanka Shiinaha iyo wadamada dhaca Yurubta iyo waliba qaaradda Aasiya meelo badan ayaa laga joojiyay kubadihii cagta ee lagu qaban jiray sidoo kale tood sportski kala noocyadiisa kala duwan ayaa hakad la geliyay wadamo badan Milano ee caanka wadanka Talyaaniga waxa la leeyahay wax kama socdaan magaalada Milano waxaa la joojiyay gabi ahaanba wixii olole sports ahaa oo magaalada ka jiray iyo koobabkii ay ku tartamayeen sportska iyo kooxaha waliba ugu waaweyn wadankaasi sidoo kale magaalooyin fara badan ayaa jira oo noocaasi oo kala ah
kuuriya aljanuubiya wadanka loo yaqaano ama kuuriyada koonfureed 123 xaalad ayaa laga diiwaan geliyey saacadihii lasoo dhaafay taasoo ka dhigan in wadankaas gudihiisa uu cudurka corona kusoo ritay 556 qof ilaa waqtigan la joogo. ra-iisul wasaaraha kuuriya oo kelimad jeediyey maalinkii shalay ah waxa uu sheegay in cudurka dadka uu soo ritay ay galeen marxalad halis ah wadankuna iminka ula daala dhacayo xaalad liidata ilaa haddana waxaa gudaha wadankaas laga diiwaan geliyey 4 qof oo cudurkani uu ku dilay. Bishaar ma moodaa in wadamadii ugu dhaqaalaha roona qaaradda Aasiya cudurkan faraba aan ku hayo marka ay eegno Kuuriyada Koonfureed iyo Iiraan oo kale. wadamada Kuuriyada Koonfureed, Iiraan iyo Shiinaha iyo waliba Japan waxay ahaayeen wadamada kaalimaha hore kaga jira marka laga hadlayo xagga dhaqaalaha iyo xitaa waliba awoodda marka laga hadlayo militariga. meelahaasna dad badan ayaa Maxamed ugu dhawaateen jiray sida aan ka warhaynaba gaar ahaan Shiinaha oo malaayiin qof oo muslimiin ah dhibaato la daala dhacaya kuwaas oo lagu guray xabsiyo korka ka faydan oo ku yaala gobolka Xinjiang ama Turkistan bari. dawladda Shiinahana ilaahay wuxuu ku ciqaabay cudurkan haliska ah dilaaga ah kaas oo ah wixii ummadda muslimka ah ilaahay ay kaga bariyeen in Shiinaha uu ku ciqaabo. in badan ayaa dadka muslimiinta ah lagu dhibaateeyay gudaha wadanka Shiinaha gaar ahaan gobolka Turkistan bari sida aan ka warhayno waxaa la barakiciyay malaayiin muslimiin ah waxaa xabsiyada lagu guray in ka badan 2 milyan oo muslimiin ah waxaa la kala geeyay wiil iyo waalid walaal iyo waarid ayaa la kala geeyay dad is salaama ma jiraan dadkii waxaa lagu ciqaabayaa qofkii warqad quraan ah gurigiisa laga helo waa loo ciqaabayay. dawladda Shiinahana dhibaato fara badan ay gobolka Turkistan bari ka geysanaysay sida aan ka warhaynaba ilaahay subxaanahu wa ta'aala ummadda muslimka waxay in muddo ah ka bariyeen in uu calaamad ka soo saaro wadanka Shiinaha tanna waxaa la dhihi karaa waa mid kamid ah ciqaabta rabbaaniga ah ee ilaahay uu ku soo rogay wadanka Shiinaha. yaa ka soo tagna qaaradda Aasiya wadamada Yurub ilaa hadda maxaa laga sheegay dhimashada iyo cabsida ka jirta ka hor niyo wadamada Yurub cabsi ayaa iyagana ka taagan ilaa hadda waxaa la hayaa dad Australian ah oo cudurkan uu soo ritay oo laba gaaraya kuwaas oo lagu daweynayo wadankooda waxaana laga soo saaray magaalada Wuhan. sidoo kale doon siday dad fara badan oo wadanka Japan ku soo xiratay maalmo ka hor kuwaas isku jira dad ka soo jeeda wadamo kala duwan ayaa dadkeedii laga soo saaray qaarkoodna markii cudurka laga waayay waa la iska fasaxay qaar kale waxa lagu ciyay wadamadooda. doonta waxaa la leeyahay waxaa laga soo saaray 31 qof oo wadanka Britain loo tarxiilay 6 qof oo wadanka Romania la geeyay 2 qof oo wadanka la geeyay Greega iyo dad kale tood oo wadanka Japan u dhashay kuwaas oo lagu daaweynayo gudaha wadanka. dadka doonta saarna ee cudurka uu soo ritana waxaa la sheegay inay gaarayaan 120 qof. maxamedow wadamadan Yurub cabsi ayaa ka taagan gaar ahaan wadanka Talyaaniga oo ah hadda meesha ugu badan ee baqdintu ay ka jirto marka laga hadlayo wadamada Yurub. sidoo kale Israel ayaa lagu soo waramayaa inay xirtay rixlaadkii ay ku tagi jireen ama duulimaadyadii ay ku tagi jireen wadamada Japan iyo Korea si ay kaga fogaadaan cudurkan sii faafaya ee wadamada caalamka saameynta ku yeeshay. sidoo kale maxamedow dhibaatooyinku way badan yihiin dawlado badan ayaana hadda waxay go'aan ku gaareen inay karantiilaan dawladaha cudurka laga helay sida Japan, Kuuriyada Koonfureed iyo Shiinaha. wadamo badanna waxay xiriirka u jireen dawladda Shiinaha oo ganacsi iyo waxyaabo kale markii hore kala Bishaar waxaa muuqata in isku socodkii ganacsiga caalamiga ah uu hakad ku jiro haddii aan ka gudubno corona iyo musiibada uu dhaliyay wadanka Mareykanka waxaa la sheegayaa in dad fara badan ay dhimanayaan oo cudur kaas ka duwan u dhimanayaan bal dhageystayaasha u sharax. wadanka Mareykanka gudihiisa 5 bil la soo dhaafay Maxamed waxa ka jiray azamo balaaran saacadihii la soo dhaafay ayaa warbaahinta caalamka waxa qabsaday war ka duwan warkii maalmaha looga bartay oo ahaa dadka u baaba'aya viruska corona iyo dacaayadii Fox-ka lagu saarayay Shiinaha iyo dhibaatada ka jirta. markaska CDC la yiraahdo ka hortaga cudurrada faafa ee Mareykanka ayaa xalay wuxuu faafiyay warbixin uu kaga hadlayo dadka ku dhintay bilihii la soo dhaafay gudaha wadanka Mareykanka kuwaas oo uusan dilin cudurka corona laakiin uu dilay cudur kale oo ka duwan oo isna ah virus umada ku dhex faafaya waxaana lagu sheegay cudurkaas inuu yahay influenza. influenzuhu waa nooc kamid ah hergabiyada dadka ku dhaca ee caadiga ah sida ay sheegayaan laakiin waxa la leeyahay markan waxa ay soo taray taasiirka uu ku leeyahay dhalinyarada iyo caruurta. mar haddii warbaahinta caalamka ay u jeesatay tabinta viruska corona ayuu markaskana wuxuu habeenkii xalay ah faafiyay lambarro la yaab leh oo ku saabsan dadka cudurkan soo ritay iyo kuwa u dhintay taas oo warbaahinta caalamka mar qura indhaha ay la taageen oo ay aad kaga yaabeen. markasku wuxuu sheegay in laga soo bilaabo bishii October la soo dhaafay ilaa iyo bishan February ee ku guda jirna bartamaheeda ay diiwaan geliyeen 16,000 ilaa 41,000 oo qof
gudaha maraykanka uu kusoo ritay viruskan halista ah ee ku dhex faafay wadankaas taas oo ah raqam aad kaga sarreeya marka loo fiiriyo dadka uu soo ritay cudurka corona waa arrin la yaab leh waxaa la leeyahay dadka uu viruskan durayga ah uu ku dhacay muusimkan hadda lagu jiro markasku waxa uu leeyahay dadka uu soo ritay duraygan intii lagu guda jiray muusimkan hadda ah waxay kor u dhaafayaan 30 ilaa 40 milyan oo dad ah gudaha wadanka maraykanka taas oo ka dhigan in 13 milyan ilaa 19 milyan oo qof ay dhakhaatiirta caafimaadka u tageen si cudurkan looga daweeyo waxaa la leeyahay dadka la geeyey isbitaalada caafimaadka sida qasabka ah looga soo saaro ama ambulasta loogu yeeray oo gaadiidka ambulasta isbitaalada ka shaqeeya maraykankaas ay 5 bil kasoo daabuleen guryahooda waxay kor u dhaafayaan 280,000 ilaa nus milyan dad ah ay gaarayaan la leeyahay sidoo kale markaska ka hortagga cudurrada faafa ee maraykanka ee magaciisa lagu soo gaabiyay CDC wuxuu leeyahay in muusimkan wuxuu ahaa mid aad u xun gaar ahaan marka loo fiiriyo caruurta iyo dadka dhalinyarada ah markii loo fiiriyo sanadadii kasii horreeyay sida uu ahaan jiray cudurkan viruskan bakteeriyada ah ee hergabka looga yaqaano wadamadan halkaasna looga yaqaano influenzaha wuxuuna sanadkan aad u saameeyay baa la leeyahay dadka da'da ah dadka qaba cudurrada muzaminka ah ama kiliya xanuunka sanbaba xanuunka beer xanuunka iyo cudurrada noocaas dadka qabana waa uu darnaa baa la leeyahay ilaa hadda waa la calaamadeeyay wax dhimasho ah way jiraan ilaa hadda waxaa la diiwaan geliyay caruur gaaraysa 105 oo u dhintay viruskan influenzaha ee ka dilaacay gudaha dalka maraykanka markaskuna wuxuu leeyahay waxaana saaciday talaalkii la siiyey caruurta da'da yaryar markii ay 6 bil jireen taas oo kaalin weyn ka qaadatay in cudurka laga hortago balse hadduusan talaalkaas jiri lahayn waxay leeyihiin arrintu saa way kasii cuslaan lahayd wuxuu ku dardaarmaya markasku in caruurta la siiyo talaalka ka hortaga cudurrada iyo waxyaabaha la midka ah si looga gaashaanto arrimaha noocan ah marka maxamedow mar hadiiba warbaahintii ay u jeysatay viruska corona waxaa muuqata in maraykanku uu isna ku dadaalay sidii uu qarin lahaa dhibaatada uu ku hayo viruskan halista ah ee gudaha wadankaasi ku sii faafay waxay la mid tahay dhibaatooyinka dhanka amni darro ee maraykanka ka jira oo sanadlo kumanaan kun qof lagu dilo warbaahinta maraykanka iyo reer galbeedkan ay kasii jeesato warbaahinta reer galbeedkan ay kasii jeedaan waa taqaariirta la faafiyo sanadlaha ah waxay sheegaan in gudaha maraykanka sanadkii markay ugu yartahay 7,000 oo qofood lagu dilo laakiin warbaahinta kama soo muuqdaan dhammaan arrimahaasna waa ay qariyaan bal fiiri hadda meeshan waxaa la leeyahay 13 milyan ilaa 19 milyan oo qof ayaa isbitaalada caafimaadka la geeyay 280,000 waxaa soo qaaday gaadiidkii ambulasta waxaa soo idilsidee loo qariyay bishaar halkan waxaa iga muuqda in dhimashadu ay badan tahay dhimashada muxuu ku sheegayaa markaska CDC wuxuu leeyahay dadka u dhintay influenzaha ka dilaacay gudaha maraykanka marka laga soo bilaabo bishii October ee sanadkii la soo dhaafay ilaa bisha February ee hadda aan ku guda jirno waxay gaarayaan 16,000 ilaa 41,000 waa number aad u culus hadda shiinuhu wuxuu ka cabaadayaa 2,442 qof oo uu dilay viruska corona oo sii faafaya gudaha maraykankana cudurkan influenzaha wuxuu ku dilay 16,000 ilaa 41,000 waa 6 bilood gudahood marka la fiiriyo marka aad ayuu kaga culus yahay markan cudurkan corona dadka uu dilay aad ayuu kaga badan yahay laakiin way qarinayaan warbaahinta maraykanka waxaana kama soo muuqanayaan warbaahinta caalamka aad buu mahadsan yahay kaas wuxuu Bishaar Cabdiraxmaan ku mahadsantihiin inaad daawataan saaxiibayaal channelkan subscribe saara si aad nala socotaan barnaamijyada soo socda waad mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu